madaxweyne Abdiasiis Laftagareen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed kadib doorashadii uu ku guuleystay hawsha ugu horeysa ee hortaalay waxay ahayd arinta dib u heshiisiinta beelaha deegaanada Koonfur Galbeed inkastoo qabsoomidii doorashadiisa ay dhaliilsanayeen beelaha qaar arinta ugu horeysa ee laga sugayay waxay ahayd inuu la fadhiisto beelaha wax tabanaya si xal loogu gaaro dhaliilaha ay qabaan 16 bishan ayaa Baydhabo lagu caleema saaray madaxweyne Laftagareen waxaana caleema saarkiisa ka soo qayb madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana intooda badan madaxweyne Laftagareen ay kula dardaarmeen in uu gogol u fidiyo beelaha wax ka tabanaya maamulka uu hogaamintiisa loo doortay gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan caleemasaarkii uu ka soo qayb galay kadib ku haray magaalada Baydhabo isagoo fulinaya codsi ka yimid madaxweynaha Koonfur Galbeed taasi oo ahayd in Baydhabo baaqi ku sii ahaado gudoomiyaha si uu ugu qayb qaato dib u heshiisiinta kulankii ugu horeeyay ayaa gudoomiyaha iyo madaxweynaha waxay la qaateen odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed kulankaasi oo looga hadlay sidii loo wajihi lahaa kulamada wada tashi iyo talaabooyinka hor yaala hanaqaadka maamulka cusub taasi oo ka horgudban caqabado badan oo ay ugu horeeyaan qancinta beelaha dhaliilsan maamulka cusub gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa odayaasha dhaqanka kulankoodii ugu horeeyay kala hadlay sidii lagu qaban lahaa kulamada madaxweynuhu la yeelanayo beelaha wax tabanaya iyo sidoo kale sidii loo bilaabi lahaa kulamada dib u heshiisiinta odayaasha dhaqanka ayaa dhinacooda waxay ballan qaadeen inay isgarab istaagi doonaan maamulka cusub oo uu madaxweyne ka yahay mudane Abdiasiis Laftagareen wax walbana lagu dhameyn doono wada hadal iyo isafgarad loo dhan yahay kadib doorashadii iyo caleemasaarkii madaxweynaha hadalhaynta ugu badan ayaa ahayd sidii madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Abdiasiis Laftagareen uu u wajihi doono mideynta awood qaybsiga maamulka waa hadii lagu guuleysto gogasha wada hadalka beelaha wax tabanaya ee hadda fidsan sidoo kale arimaha dib u heshiisiinta ayaa waxa ka qayb qaadanaya wasaaradda arimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed oo qabanaysa kulamo gaar ah oo ay la yeelanayso beelaha deegaanada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka Cabdinaasir Musharraf telefishanka Jinawkay magaalada Baydhabo